أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 66 oo suuratu aal cimraan ka mid ah. waxaanu soo gaarnay casharkeeni 91 annagoo ku dhex jirna suuraddii 3aad oo quraanka. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeeni ahayd ugu dambeeyey. ilaahay wuxuu dhahay isagoo la khidaabaya qolooyinka ahli kitaabka markii hadalla aan jirin ay ka sheegeen nabiyullaahi ibraahim waxaysan ku sugnayna ay sheegteen ayaa ilaahay wuxuu soo yiri subxaanahu wa tacaala dadka kitaabka ahalku ahow maxaad ugu doodaysiin nabi ibraahim ood u sheeganaysaan inuu diinkiina uu ku sugnaay ayadoo towreed iyo injiilba aan la soo dejin ilaa nabi ibraahim ka bacdi mooye. maxaa la yahuudna towreed ayay sheeganaysaa nasaarana injiil waxaasoo dhan nabiyullaahi ibraahim waa ay ka dambeeyeen. sow garamaysaan uu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiina baadilnimadiisa. ayagibaa marka hadda waxaa weeye khidaabka ilaahay uu ku sii wadaa oo alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala haa hooy ayuu dhahay ilaahay haadaanu litambiih waaye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala haa hooy ayuu dhah ilaahay antum idinku haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwiina kanow xaajajtum waa doodeen. haadaas waa litambiih antumna waxaa weye mubtada waaye haaulaa'idana xarfuniddaa lagu qadirayaa xaajajtum taasaa khabarkii noqonaysa daa xagga icraabta usoo laaban. ilahi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala haa hooy baraaruge antum idinkow dhah ilaahay haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwiina kanow xaajajtum waad doodeen fii maa shay ayaad ku doodeen lakum ou idinkugu sugnaaday fiihi maaga cilmun cilmi ou idinkugu sugnaaday. waxaad cilmi ku leedihiin ayaad ku doodeen taasoo ah nebiyullaahi muuse umuurtiisa iyo nabi ciise. waxaadna sheegatay inaad diintoodii ku sugan tihiin. arrintaas cilmi baad ku leedihiin oo yahuudna towreed oo nebi muuse lagu soo dejiyey ayay haysataa, nasaarana injiil oo nebiyullaahi ciise lagu soo dejiyey ayay haysataa. labadaas kutubne waxay ka warramayaan nebi muuse iyo nebi ciise inay yihiin laba addoon oo ilaahay addoominkiisa, laba rasuul inay yihiin oo markaasi waxa weeye ay ayagana la faray cibaadada ilaahay keligiis inay caabudaan oysan alla u shariig yeelin. inta markaasi loo soo dirana inay sidaas faraan la amray.
marka taas haddaad ku doodiin waxaad cilmi ku leedihiin waaye falima maxay baa tuxaajuuna adigu doodaysiin fii maa shay laysa lakum ousan idinkugu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi oo nebi ibraahim sha'nigiisa falima maxay baa tuxaajuuna adigu doodaysaan fii maa shay laysa lakum ouna idinkugu sugnayn bihi isaga cilmun cilmi wallaahu allowna ilaahay yaclamu waa ogsoon yahay sha'niga nebi ibraahim wa antum idinku laa taclamuuna ma ogsoonidiin wallaahu alle yaclamu waa ogyahay oo caalim ayuu ku yahay waxa weeye nebiyullaahi ibraahim waxa uu ku sugan yahay ilaahay caalimuu ku yahay wallaahu alla yaclamu waa ogyahay sha'niga nebi ibraahim wa antum idinkiinaan ku doodaayose laa taclamuuna ma ogsoonidiin ow ilaah ma iska daysaan marka haddana ilaahay wuxuu leeyahay isagoo biri yeelaya nebiyullaahi ibraahim oo hadalladii ee yahuudda ee nasaaradu ay ku yidhaahdeen ka biri yeelaya maa kaana ma uusan ahaanin ow ilaahay ibraahiimu nebi ibraahim yahuudiyan yahuud mid loo nisbeeyey iyo walaa nasraaniyan nasaare mid loo nisbeeye ma ahan walaakin kalkeeda kaana wuxuu ahaaday xaniifan mid iisha oo adyaanta baadiladaa ka iisha diinka toosan u iisha musliman ayuu ahaaday mid muwaxidahoo ilaahay waxidaaya wamaa kaana ma uusan ahayn nebi ibraahim min almushrikiina kuwa shariig yeelaa mid ka mida ma uusan ahayn ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisa ayuu biri yeelayaa hadallada yahuudda iyo nasaarada ay yidhaahdeen ayuuna ka biri yeelayaa markii ilaahay uu soo caddeeyey waxba inaysan ka garanaynin nebiyullaahi ibraahim maxaa yeelay kutubtoodii laguma sheegin oo ayaga markaasi nebiyullaahi ibraahim waxaa la leeyahay kutubtiinna laguma sheegin marka saad u sheeganaysaa inaad diintiisa aad ku sugan tihiin adinkoo waxaa weeye nabi ibraahim waxa uu yahay ka jaahila markaasuu dhah ilaahay marka hadda leeyahay kutubtooda laguma sheegin hadda waxa weeye kutubtoodu sida ay markaasi ambiyada ilaahay kutubta dhammaanteed waa lagu sheegay laakiin qaabka markaas iyagu ay u leeyihiin ayaan loogu sheegin maa kaana ibraahiimu nebi ibraahim ma uusan ahayn ow dha ilaahay yahuudiyan yahuudi mid loo nisbeeyey walaa nasraaniyan nasraani mid loo nisbeeyo nasaaraana ma ahan walaakin kalkeeda kaana wuxuu ahaayow dha ilaahay xaniifan maa'ilan min aladyaani kulliha ila diini alqayim weeye mid ka iisha adyaanta baadilka oo diinta toosan u iisha musliman ayuu ahay mid muslim oo hoggaansan oo muwaxida weeye awaamirta ilaahay ayuu fartoomayey waxa alla ka reebana waa ka haraayay wamaa kaana mana uusan ahayn nebi ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiinta mid ka mida ma uusan ahayn ilaahay kuwa u shariig yeelaya ayaga hadda marka waxa weeye waxaa loo sarbeebayaa inay ayagu markaas mushrikiin ay yihiin marka hadda dadka yaa ku habboon inay sheegtaan nebiyullaahi ibraahim ilahi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina owla nnaasi dadka kuwa uga xaqnimada badanna biibraahiima nebi ibraahim laladiina kuwa weeye ittabacuuhu raacay dadka markaasi nebiyullaahi ibraahim inay sheegtaan oy inay calaa diinihiin ay sheegtaan dadka ku xaq leh waa dadka markaasi raacay oo zaminkiisa joogow dha ilaahay macnaha dadkii zaminkiisa joogay isla markaasna raacay waxaa jira dad zaminkiisa joogay oo aan raacin kuwaas kuma jiraan ina owla naasi dadka kuwa uga xaqnimada badanne biibraahiima ibraahim laladiina kuwa waayow dha ilaahay ittabacuuhu raacay fii zamaanihi iyo wahaada nebiyu nabigan oo kana nabiguna waa rasuulkeena calayhi salatu wasalaam maxaa yeele nabigeenu sharcigiisa agsarkiisa ayuu ku waafaqsan yahay maxaa yeele kitaabkan qur-aanka wuxuu aad iyo aad u shabaho u waafaqsan yahaa layidhi kutubta xagga usuusha way iska waafaqsan yihin laakiin waxyaabo badan nebiyullaahi ibraahim suxuftiisa marka caqaa'idda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo nabigu uu ku sugan yahay ma khilaafayso wixii maaragtay nebiyullaahi ibraahim kitaabkiisa lagu sheegay suxuftiisa marka hadda waxa weeye usuusha ku waafaqsan yahay waxyaabo kalena hadda kutubtan kale isaga sii dhow yihiin oo xataa xagga furuucda xataa
wax badan iska waafaqsan yihiin xagga suhulada maxaa yeelay shariicada nabigeena kaleey salaatu salaam shariico oo sahla weey oo markaa si fudud sida shariicadii nabi ibraahim sida shariicadii muusa kala maahan taas sacbatu takaalif ay aad maxaa yeelay reer banu israa'iil ayaa cinaad badan ayaa la yimid markaas ilaahay ku adkeeyay iyo hada nabigan oo kana howdha ilaahay iyo waladiina kuwa aamanu rumeeya nabiga kaleey salaatu salaam ummadiisa oo inta nabigeena rumaysay ayaa loola jeedaa ummadiisa wallahu allahu ilaahay waliyul mu'miniina kuwa mu'miniinta kii u gargaaraya weey nabigeena kaleey salaatu salaam ummadiisa waa ku cadfantay marka dadkaas ayay haboon tahay inay yiraahdaan naxnu ala diinihi yaalay anagu diintiisa baan ku sugannahay ilaa antum idinka la wallahu allahu ilaahay waliyul mu'miniina mu'miniinta waligoodi way naasirkoodi way mu'miniintana ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa waliye ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u gargaaraya allah ayaa xifdinaya subhanahu wa ta'ala wadad waxay jeceshahay ilaahay daa'ifatun qolo oo min ahli alkitaabi kitaabka ahlkiisa kamida law yudillunakum ina idin lumiyaan wal hal ma yudilluuna aysan luminaynin illa anfusahum naftooda mooyee wama yash'uruna masagaranayna ilaahay subhanahu wa ta'ala ayadan idin sabab rasuulkeedu wuxuu ahay yahuuda ayaa waxay u yeereen labada saxaabiyo la kala yiraahdo maya waaba saddex saxaabi muaad ibn jabal ya hudayfa ibn al-yaman ya amar ibn yasir ayay diintooda u yeereen diintooda u yeero diinta yahuudiyada ayay u yeereen oo waxay yiraahdeen annaga ayaa xaq ku sugane muhammad diintiisa ka soo baxa ayay yiraahdeen hase yeeshee hadda waxay ka qaadanayaan ma ahan oo waxay ka yeeleen ma jirto gaashaankay ku dhufteen markaasuu dha ilaahay wadad waxay jeceshahay laakiin hadda asxaabta nabigeena markay u yeereen yahuudu mar walba saas weeye oo haddana waxa weeye dadka muslimiinta inay diintooda ka leexiyaan ay tooda u yeeraan marna ka suuli maayaan markaasuu dha ilaahay arinta wadadan markaas siminka waa taaganta wadad waxay jeceshahay dha ilaahay ama ay tamaninaysaa daa'ifatun firqo ayuu dha ilaahay oo min ahli kitaab kitaabka ahlkiisa kamida loo yudilluunakum ina idin lumilahaayeen mar ina idin lumiyaan calashaadii waxa weeye diintiina idinka bixiyaan oo tooda idin bixiyaan waa idin lumiyeen hase yeeshee wama yudilluuna ma luminaayno ilaa anfusahum naftooda mooyee maxaa idlaalka ay samaynayaan oo dadka lumiya isleeyihiin ayaga ilaahay ku soo celinaya muuminiintuna ku adeeci maayeen arintaas hase yeeshee wama yashcuruuna ma garanaayno ilaahay waxay ka kasaayeen ma jirto ilaahay hadana wuxuu yiri ahlul kitaab kitaabka ahlkiisiyo lima maxayba takfuruuna adu kufrinaysaan bi aayati illaahi ilaahi aayatkiisa aayadka ilaahay oo kalluminaya sifada nabiga kaleey salaatu wasalaam maxaad maaratay adu kufrinaysaan ahlu kitaabka hadda labadii qola hadda laga hadlayay ayaa loola jeedaa oo waxa weeye tawreed iyo injiil nimanka kala haysay yahuudiya nasaaraha weeye maxay labadaas kitaab waxay shamlinayaan oo ay kulminayaan sifada nabiga kaleey salaatu wasalaam oo hadii la yiraahdo waxaan ku tagi doonaa alladina yattabi'una ar-rasuula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injil marka alla wuxuu dhahay yaa ahlul kitaab kitaabka ahlkiisiyo lima maxayba takfuruuna adigu kufrinaysaan bi aayati illaahi ilaahi aayatkiisa wal haal antum idinkuna tashaduuna ad ka marxaati kacaysaan inay markaas aayadaha xaq yihiin adinkoo og maxaad u kufrinaysaa marka hadda ogaal la'aan u geeymaysa ee xaqay ka soo horjeedaan yaa ahlul kitaab kitaabka ahlkiisiyo ayuu dhaa Allah hadane lima maxayba talbisuuna al-haqa haqa adigu dheehaysiin bil baadilka tahriifka iyo taswiirka samaynaysaan oo kutubtiina aad ku samaynaysaan waa maxay marka Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala hadane yaa ahlul kitaab kitaabka ahlkiisiyo lima maxayba talbisuuna al-haqa haqa adigu dheehaysiin bil baadilka maxaad u dheehaysiin
وتكتمون الحق حق محادو قرن إيسان والحال أنتم إذن كنا تعلمون أدكسون تين وحقية هاي دينك هذا إلهي وحوله سبحانه وتعالى وقالت وحي تري طائفة قلق ومن أهل الكتاب كتاب أهل كيسة كمده آمنوا رماية بالذي كي أنزل للدجيي على الذين كوا آمنوا رماية وجه النهار مالنت أول كذا واكفروا كفريانا آخره مالنك آخر كذا لعلهم وحي مدين كوا مؤمنين تا يرجعون إلى كلابتا دين تودي وهي الله مكرق أي خداعات كأي سمينا أيان قلوينك أهل الكتاب كي إليه نوغو رمايا برك هذا وحال لقود قليا تلبيسات اليهود يهود تلبيسات كيدي وهي إسلام كسودح قلنا يسي إن مارتي الله عدايو وحانا اللي وريي لابا إيا طبان أو مارتي علماء يهود داهد أيا قلمايو ميل إسوي بدي وهي قوان كو قارين إني إسلام كظاهر صدان أو إسلام كموجيان مالنت أول كيده مالنت مركي آخر لقارني إني كاللابتان ويدين كودي أولابتان dadkana arintaas ay faraan walajeedada marka ay ka leeyihiin waxay ahaaday shaki inay geliyaan dadka rasuulkeena kaleey sallallahu alayhi wasallam rumeeyay markay halaakin hadda arintan ma sameeyne markay go'aanka ku gaareen arintaas oo isku soo aruursadeen ayaa ilaahay dhagartoodii ayay ku celiyay waxay sameeyeen ma jirto laakiin hadday sameey lahaayeen la'aada shumuhu calayhim shumugu ayagu ku soo laabalahay waana la leeyahay hadiisan toobakeen maxay la murtado noqolahay murtadkana markaasi ridadiisa ku sii baaqi ahaamayo faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi wa tawd ilaah marka ayaa arintaas khatar ugu sugnaa laheed ilaahay marka wuxuu dhahay wa qalad wixii tiri daa'ifatun qolo oo min ahli kitaabi kitaabka ahlkiisa kamida aaminu rumeeya billadii ki unzila la dajiyay ala alladina ku korkooda lagu dajiyay aamanu rumeeyay وقرآن كوي وكان نهاري مالنت أول كذا رمية واكفروا كفريانه آخره مالنت آخر كذا لعلهم وحي مليهن كوا مؤمنين تا مركز أساس أركان يرجعون إلى لابتان ويدين كوذا كلابتان معايا لو وحي إليه المركز ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بضلانه waxay shaki u galaan waxay dhihayeen nimankaas waxay uga galaabteen diinta tan in markii hore galeen waxbay ka arkeen oo ka ogaadeen marka sidaas way dhihi lahaayeen waa siyaasad markaas ay ku khadiicayaan dadka muslimiinta waxa kale yiraahdeen haddana wala tu'minuha rumayna oo ha u rumayna illa liman dul mooyaane tabi'a raacay diinakum diinkiina raacay ولا تؤمنوها أرمينا إلا لمن دول مويانه طبيعة راعي دينكم دينكين ودينكين وافقي عدك له أرمينا قل وحا أتره الإلهي إن الهدى هنونك هدى الله إليه هنونك سوي كاسو وحوي إسلامك وحي إسلامك كسو هرنه بعضي واي جملة دانوك جملة معترضة وي قل وحا أتره الإلهي إن الهدى هنونك هدى الله إليه هنونك سواي marka daan jumladaas mu'tarada ka soo laaban hadalkiisa uu xiray wala tu'minuha urmayna yiraadeen illa liman dul mooyaana tabi'a raacay diinakum diinkiina raacay an yu'ta in la siinaayo ha urmayna yiraadeen ahad misla ma ki masarkiisa uu tiitum leedin siiyay qofna ha urmayna waxa idinka leedin siiyay oo kala ayaa cid la siiyay oo kitaab iyo xikma iyo fadaa'il an yu'ta in la siinaayo هأرمينا أحد مثل ما كيوكله وتيتم إذن كليديسيي أو أما سيحاجوكم بأن يحاجوكم إنه إذن لدو ذا أيان مؤمنينتو أي دود إذن كغالب نقون أيان هأرمينا عند ربكم ربيين أكتيسا مالين تقيامه معايا إذن كالدين صحيح سن أو يحاجوكم بأن يحاجوكم إنه إذن لدو ذا أيان دود إذن كغالب أيان إذن كان قالب نقول عينها أرمينا عند ربكم ربيين أكتيسي ساسي هذا
قال تعالى إلهي وحور سوق قدره قل وحاؤتنا سيدك محمد كهو إن الفضل فضله بيد الله إلهي يدي سوء هذا فضلك إلهي بها سبحانه وتعالى يؤتيه الله واسينا يعني ما يشاء روح أودونا والله ألنا واسع عليه واسع يهوي فضل يسو عليم عليه علم كله ويقفك أهله marka hadda waxyaabahan hadda falaaisho hay sheeganayaan shay ilaahay bixiyo waaye waxa alla bixiyana sidoodaba alla ayaa meeshu dejinayo iyo cid uu siinayo ilaahay isaga wax la sheegtana waxba tari maayaan waxa saan ah iyo saasay tahay iyo cid wax ku dheefaysaa ma jirto markaasuu dhahay Allah subhanahu wa ta'ala qul waxa u tiraada innal fadla fadluhu biyadillahi إلهي يدي سوء هذا فضل إلهي سبحانه وتعالى أيها قعنتيسا كوها أود الله أيوه كجرا يؤتيه الله واسينا يا فضلك من يشاء روح أودونا فمن أين لكم حقيقة كانتنا لي أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتت إلى أن أحد لسينين واحد إذنك ليدين سيوك له وإذا إذنكم مركز ذاتك أوصر ريسانه وحكا صوف الله إلى إذنك أدليدهين حقيقة كانتين والله الله واسع عليه واسع يهوي فضل يسو عليم عليك علم لوي قفك أهلها أن إلهي أساك علم له مركز ذاتك إلهي فضل يسو ارتوا واسع عدك السوق جاره أو وحمل المركز كوكوبا أو مركز ذاتك كير معهن هذا إلهي وحو أجهي قفك فضل جاس أهله قفك أهله أي أجهي قفك صون الصيناء مركز صوره الله يختص الله وخاص يلايا وكجوني يلايا برحمتي نحريسيسه ما يشاء روح أدوناي يختص الله وخاص يلايا برحمته نحريسيسه ما يشاء روح أدوناي أدنى الدواء كانوا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى يا نبي نمدك خاص يلاي وهذا مارته وقت جيسه إذا يستأسنجر هذا أساق سيد إلهي كدغ عد أو كدغ مجرته marka ilaahi subhanahu wa ta'ala fadligiisa cid uu doono ku khaas yeelaya yaqtasu alla waa ku khaas yeelaya waa ku gooni yeelaya birahmati naxariisiisa ma yashaa ruuxa uu doonayo wallahu allane dhul fadli allahu u saaxiiba weeye al azim oo weyn ilaahi subhanahu wa ta'ala fadli azima asaga ya iska leh wallahu allane dhul fadli allahu u saaxiiba weeye al azim oo weyn وهذا الفدين يا مركزي مركي بعيد سدين أي واحد صورة قلة أي واحد صورة قلة هنا أي كدجين أن الله لا يؤتي أحدا مثل ما آتاه من الفضل والنبوة إيجا وحي لسيء أو فضل ونبي ما عدنا لسينين وهكذا لو ردي أي كتها الشيخ شذا أي شيختين وحكا أو مركز فضيلة أي شيئتين عدنا يسانو أقولين مركا إلهي فضل عظيم يؤسك ليه فيعديه ما يشاء على مركز الله سبحانه وتعالى فضل يؤسك ليه عد أو دونا يوسينا يا عد مركا وحوية أنك كلية أيا وحاس أهلؤه أنك أيا متيساني ليه كرت مجرته إلهي أدو من كيسة وايقانا سيدا أو دونا أمامولا يا وحي أو دونا أيو بحنا يا وحو دونا إلهي وامنعنا يا marka sida dadku ayagu ay rabaan arinta noqon mayse amuurtu waxa weeye sida ilaahay uu doonayo saasay noqonaysaa cid ayadu wax gooni ay saari kartana ma jirto waxaan ilaahay saarin qofkiisa saara asaga markaas ku duloobaya marka waxa weeye 10 keeni intaas ayuu ku eg yahay